hayrka tuulada Ari Cadeyso iyo dadweynaha deegaankaasi oo horkacayo ayaa maanta cabasho xoogan ka muujiyay boob ba'an oo lagu hayo dhulkii xoolo daaqsinka ahaa ee deegaankaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyayba ay cabashadiisu isa soo taraysay waxaana ay sheegeen inaanay marnaba aqbali doonin in xoolahooda dhulkii ay u daaqayeen la siiyo dad gaara waa sida ay hadalka u dhigeen deegaanka Ari Cadeyso oo ku yaala xeebta galbeed ee magaalada Berbera ayaa qiyaas ahaan u jira dhowr iyo 20 kiiloomitir magaalada Berbera waxaan ahay hayr tuulada Ari Cadeyso gudoomiyaha tuulada Cadeyso ayaan ahay waxaan halkan kaga cabanaynaa oo mushkilada ka taagan tahay magaalada Berbera galbeedkeeda deganaa ee xoolo dhaqatada ah ku oona mushkilad baa haysata dad weerar ah oo la yaacaya seesas iyo dhul la seesiya la yaacaya ayaa dhulka bariyahanba aan isku haysanno hawsha ka waday waxa imika seeska imika aan dul taaganahay 1 mitir buu badda garabkeeda cararaya dhulkii daaqeenkii xoolihii geel 10 kun oo halaad baa dhulka daaqa oo galo oo wax kale aan quudan quuto lagu meesha ku yaaladii geedkii xarun ahaa ay daaqayeen iyo kii kuna ka harsanayeen wixiiba cagaf baa la gelinayaa badda lagu shubaya halka deed mushkilad weyn baa ka taagan cidii markii ay dadkii ilaahay war waxaan naga daayeen dadkii waxa loo adeegsaday askari shaar dawladeed xiran baa yidhi cartu u dhaha oo wixii uu arkay xirayo jeel ku taxaabay jeelkii ku xulan yihiin hawshiina qasab baa lagu wadaa way socotaa sidii bay hawshu socotaa dhiskii iyo cagaftii kayntii la garaay sidii bay socotaa wax maamulka Berbera aanu gaarsiinina waxba kama qaban halkan waxaanu dawladda uga sheegaynaa wasaaradihii ay qusaysay dhulkaas haddii ay tahay tii wasaaradda xanaanada xoolaha haddii ay tahay tii hawlaha guud haddii ay tahay tii golaha deegaanka intii ay qusaysaaba inay waajibkeeda ka gudato ayaanu doonaynaa beeraha xanaanada xoolaha hawlaha guud deegaanka inta ay waajibkeeda ka qaataan doonaynaa halka imika aan joognaa 30 kiiloomitir tuuladaas ay Berbera u jirtaa Berbera halka xarunka xeeran imika joognaa 25 kiiloomitir buu jiraa Berbera dhul ay dawlad hoose sharci u leedahay bixin karto oo cagaf keen karto ma baaha oo dhul daaqeen oo qaryada weey waxaanu leenahay madaxweyne waxaanu leenahay si degdeg ah hawlaha hadaan laga soo gaarin dee waxa ka dhacay halka ceeb iyo baa ka dhacaysa wax ka xun baa ka dhacaya ilaa xaaladda hawsha socotay ilaa shalay ilaa maamul socotay ilaa xalay ilaa shalay anagu waxaan ku jiray nabad ilaalin si dadka loo kala baariyo aan ku jiray oo inta ku hawlanayn waxa dhacay xaalayto waxa la yiri halkii meeshii weerar dagaal baa ka dhacay wariyaal la isu soo gurtay ninkii reer miyiga ahaa geedkiisii xarun ahaa ama kulan ahaa xoolo ugu noolaayeen buu dee markii la cagaf goysay dee difaacanaya dadkii seesaska iyo lacagta isku yeeriyanaya dhulka dee boobaya kugu mitir loo seesayay dee iyana xoojin bayo dee waxay buuraha korka ka xiga habeen iyo dharaan inta dhagax waa la gurayaado waa dabada loo haya hadii la yiraahdo marka dhagaxa laga guro dhulku waa cid buu noqonayaa way iska soconaya aboo daadka iyo dabaylaha qaadaya meel xoolo ku noolaan karayaan iyo meel hadii la ku dhaqmaan midna ma jirayso halka imika ay cagaftu ku jirto ee xarunka waxa weey wadankii waxa xoolaha u qaalisanay ay ku noolaayeen 20 kun halaad 30 kun halaad ayaa jiray waa taasoo cagaf waxay ku noolaayeen waxay ahayd hadii 20 sano ama 15 sano roobdii waayo way ku noolaanayeen geedka kulana way harsanayeen ka xarunna way manfaacadsanayeen biyo bay u baahnaayeen waxa weeye imika aanu taaganahay waxa weeye 2 kiiloomitir weey marka inanka abihi 2 kiiloomitir uu seeso ama uuba adeelay si sharci darro ugu qabto ka aan aniga inankaygu iyo ka lamid ah ee aan adeelay inta in leeg loo qabanay bari waxay noqonaysaa kuwa soo dhalanaya inay tariibaan badda ku daataan Cabdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka caalamiga SAB TV magaalada xeebada Berbera.